dadweynaha ku dhaqan magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxay maanta ka hadleen isla markaasina aragtiyo kala duwan ay ka dhiibteen sida u arkaan go'aanka guddiga komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ay ka soo saareen in dib loo dhigo doorashada madaxtinimo ee baarlamaanka iyagoo ka hadlay arrimahaas iyo arrimo kalena waxa ay tilmaameen anigoo ah caaqilka caabilada Soomaaliland dib u dhigida komishanka waxaan leeyahay وأقولشي أقول أقارني Somaliland. هذا الكردية كوميشن كوي إعلامية. مركي كم بعد ذن دور الشحق حلالة. رنتي أود بحلنا أولى. حوله هذا الشقاق وقت جاي يكون كمان كرانين إعلامية. أنا مدبر رنتي لا تسبيه. ومن الصوبتين من السجال بالوضع أي دبل التام. هذه القدر وقت دور الشدة كذي. waxaan u arkaa shalay toolawati la diidanaa ku darsiga xukuumadii rayaalay deengadii laga soo saaray shalay teed baa laga soo saaray wala isiraaye hadii halabeena dhaaf iska degmaan leh adeer talada dalka go'aanka shalay ay soo saareen komishanka Soomaaliland waxaan u arkaa inuu sax yahay sababtoo ah Soomaaliland weli magacaada kuma taagna waxa lagu wadaa suuba salaax waxa la yiraahdo suuba salaax baa lagu wadaa taasi waxa ay wax iska cad oo marka horeba dadku ay ogaayeen balse xukuumadda ka iska ahayd way qabanaa doorashadii waqtigeega sharciga dalkuna wuxuu dhigayaa in doorashadu kaarka doorashada ay diyaar haado muddo 6 bilood ah intaan la gaadhin waqtiga doorashada su'aalo badan isweydiin qorxada أنا وحنا مسناي هدي مدحونها إسقى إن الله قد نبض مدحونها وايو وحوه بعض مدحونه بقول كيا بابا إنه درسوه بيسني وايو إسقى عارض وحبط كمان بالمكيال لو قاعدين نضغط ما أدري إسقى ضغط سوي واحد والله تعبان خلاص سوي ضغط وش هذا واحد بدن فانسي ضغط وبعدين ما أنت إنه يعين خذي النص دريني أذكر مسين إنه يلعب معها والله خديها أنا كنت أجلسنا أي كوميشن قارك الدورشين كسومالان سقالك بلودي dib u dhigeen waayo wali diiwaangelintii ma dhamaanin qof walaalna 9 bilood kadib waxa codan doona isagoo haysta waxaan arkaa komishanku aad baan soo dhaweeyaa 9 bilood dib u dhigeen doorashada waxaan jeclaanaa 2 sano dib loo soo dhigo xukuumadda waan taageersanay komishanka qaranka haddii aad weydiisay waxa weeyaan komishanka qaranka maanta uu guushigu weynaa u gaaray maadaama oo hawshii isagu loo idmaday uu ka soo baxay komishanka qaranku waan ku taageersanahay sidii ugu quruxda badnayd ee wuxuu noogu dhigay maxay ahayd ummaddu ay ku qanacsanayd komishanka qaranku waa hay'ad madax bannaan oo ka mid ah hay'adaha dowladda Soomaaliya aad iyo aad baan ugu ixtiraamaynaa go'aan kasta oo wax ku wada dhaxalgala oo u dana bulshada iyo dadkaba oo ay keenaan tixgelinna waa siinana xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa inay ka digtoonaato wax kasta oo faragelin ku noqon kara komishanka go'aanka shalay ay soo saareen runtii ay dadka qaar soo fasirteen ay qaar leeyihiin xukuumadda ay u eg tahay أنا واحد الله ما قوتهاس هذا ويا كاتنا واحد نقول إيصا ميلان دوني ربيجوري وحكومة بلها كورني أديك الرئيس مثل جالس سو ما نقال لكن واحد مودا بدي ذا كمشة فيني أهرتها سوق الدين اللي هو ولا فرسماهان أو تكنيكال ولا العوجة هذه أدبانك السلوك بتوع قبل كمشة نور الدين عبد الله دوكسية تلفزيون عالمي جالس ماري channel نقال الدبورما